mahadsanid daawadayaal halkaan naga daawanaysaa studio Royal 24 ee bariga Saudi Arabia jimca kastana naga daawataan wararka bariga dhexe wararkan idin haynana maanta waxaa kamid ah wararka ka imaanaya dalka Masar ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee xukunka laga tuuray ee dalka Masar Mohamed Mursi ayaa maanta maxkamad la soo taagay magaalada Qaahira si uu wajaho dacwado loo haysto isagoo iyo xubno ka tirsan ururka Ikhwaan Muslimiin diyaarad helicopter ah ayaa Mursi keentay maxkamadda taasoo ka soo qaaday xabsiga lagu hayo oo ku yaala magaalada Iskandariya dacwadaha loo haysto Mursi iyo 130 nin oo kale waxaana kamid ah ka baxsashadii uu ka baxsaday xabsi ku yaala dalka Masar 2011 inuu ka dambeeyay rabshado ka dhan ah dad dibadbaxayaal ka dhigay sanadkii 2012 iyo inuu aflagaadeeyay garsoorka Masar Mohamed Mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Masar oo si xor ah loo soo doortay ayaa waxaa xukunka ka tuuray militariga Masar bishii Juulaay ee sanadkii hore saraakiisha Masar ayaa sheegay maanta oo khamiis ah niman hubaysan ay toogasho ku dileen sarkaal sare oo booliska ka tirsan oo lagu magacaabo General Mohamed Al Saeed oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha dhanka kale golaha sare ee militariga dalka Masar ayaa isku raacay in taliyaha ciidamada Masar General Abdel Fattah Sisi uu isku soo sharaxo tartanka doorashada madaxtinimada ee dalkaas General Sisi ayaa sidoo kale waxa uu hayaa xilka wasaaradda gaashaandhigga sida dastuurka uu dhigayo waa inuu horta iscasilo xilalka uu hayo kadibna uu ka qayb galo tartanka doorashada isaga oo rayid ah dhinaca kale madaxweynaha ku meel gaarka ee dalka Masar Abdullah Mansour ayaa maanta soo saaray xeer lagu dalacsiinayo General Sisi oo loo dalacsiiyay darajada militariga ugu sareysa ee Marshal wadahadalada Suuriya ee Geneva waxa dhexdhexaadinaya qaramada midoobay wadahadalada nabadda ee Suuriya ayaa ka sii socda Geneva maanta iyadoo dawladda iyo mucaaradka la filay inay xoog saaraan sii deynta maxaabiista iyo dadka la afduubay shalay ayay markii ugu horeysay wadahadal ay is hor fadhiisteen ahayd uga wada hadleen sidii baabuurta gargaarka ay u tagi lahaayeen meelaha dagaalku ka socdo ee magaalada Ximis dhexdhexaadiyaha qaramada midoobay Lakhtar Ibrahimi ayaa ku tilmaamay inay ahayd bilow fiican inkastoo aan la gaadhin heshiis wuxuu sheegay waxyaabaha laga hadlayo muhiim inay u yihiin sidii loo sameyn lahaa dawlad ku meel gaar ah sida lagu heshiiyeyna heshiiskii Geneva ee koobaad bangiga dhexe ee wadanka Turkiga ayaa kor u qaaday heerka dulsaarka lacagaha deynta ah si uu xoojiyo lacagaha liirada oo hoos u dhac ku yimid heerka dulsaarka ayaa la gaarsiiyay in ka badan 10% taasoo laba jibaar ka badan intii hore Turkiga ayaa kamid ah wadamada uu dhaqaalahoodu ku tallaabsaday kobaca ballaaran balse la kulmay dhibaato dhaqaale ee saameysay wadamada horumaray sida Mareykanka ra'iisul wasaaraha wadankaas Recep Tayyip Erdogan ayaa ka soo horjeestay tallaabadan uu bangigu ku dhaqaaqay waxaana shirkadaha maalgashiga qaarkood ay hantidoodii kala baxeen wadankaas dadka daroosa arrimaha wadanka Turkiga ayaa sheegay in kalsoonidii maalgashiga ee Turkiga ay hoos u dhacday kadib markii ay dhowaan soo shacbaxday fadeexad musuqmaasuq ku salaysan ajaanibta ku nool wadanka Liibiya ayaa cabsi aad u xoog badan ay soo food saartay kadib muwaadin u dhashay dalka Koonfurta Korea ayaa lagu afduubay magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya ninkan oo lagu magacaabo Mr. Hansu ayaa madax ka ah ururka qaabilsan arrimaha ganacsiga ay lahaayeen Kuuriyada Koonfureed waxaana la afduubay galabnimadii Khamiista oo uu ku sii jeeday hoygiisa waa afduubkii labaad oo muddo maalmood gudahood loo geysto qof ajnabi ah oo dalka Liibiya ku sugan waxaana kooxihii afduubay ay fasaxeen darawalkii ku waday gaariga oo u dhashay dalka Ciraaq horaantii bishan galbeedka Liibiya ayaa lagu arkay meydad fara badan oo ah muwaadiniin reer Ingiriiska iyo reer New Zealand iyadoo aan la aqoon cidda dishay waxaana soo badanaya beegsiga lagu hayo dadka ajaanibka ah tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii Colonel Gaddafi kacayaasha ku jira xiriyaha qaxootiga ee Suuriya iyo xaalad aad u adag ay soo food saartay xiriyahaas ku yaala dalka Lebanon taasoo ah in cimilada dalkaas ay isbedeshay waqtigana uu yahay qabow dadkii ka soo qaxay dagaaladii ka socday dalka Suuriya ee u soo qaxay wadanka Lebanon ay diriska yihiin waxa ka jira xirooyinkaas xaalad aad u adag iyadoo xilligan la galay xilli qaboobaha halkaasna ay ka da'ayaan baraf iyo dabaylo aad u qabow xerada qaxoontiga ayaa aad u buuxda ayaa maalinta ka dambeysay waxa yimaada dad cusub oo ka soo qaxaya dagaalada iyo colaadaha u dhaxeeya ciidamada Suuriya iyo mucaaradka
shacabka suuriya ayaa waxay u kala qaxeen wadamada dariska la ah iyagoo raadinaya kana cararaya dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayaan dowladda iyo kooxaha kasoo horjeeda waxayna miciin bideen inay degaan dalal banaan halkaasina ay taalooyin uga dhistay hay-adda qaxootiga xilligan oo ah xilli aada u qabow ayaa waxay sheeganayaan dadkan soo qaxay inaysan helaynba wax caawimaa inkastoo wadamada carabta iyo khaliijka gaar ahaan ay hadda ugu jiraan inay dhaqaale aada u fara badan u ururiyaan halka reer galbeedka ugu horeeya maraykankuna uu sheegay lacag 30 milyan gaadhaysa inuu ugu deeqay Lubnaan ayaa horey waxaa ku noolaa qaxooti badan oo ka yimaada dalka Falastiin xilligan ay ku soo darsameen qaxootiga Suuriya ka soo qaxaya. iminkana waa wararkii ka baxsanaa wararka bariga dhexe iyo mucjisada maanta. qoys masiixi ah ku nool dalka ruushka ayaa dhalay ilmo yar oo lugtiisa ay ku qormayso qur-aanka kariimka iyo axaadiista sida ay soo xigatay tv-ga caalamiga ee Richard. ilmahan yar oo waalidiintiisu aan islaam ahayn ayaa waayay cid u fasirta sababta ay mucjisadani u dhacayso. ilmaha yar ayaa kolka lugtiisa laga masaxo qur-aanka uu dib ugu soo qormayaa. waalidiinta wiilka dhalay ayaa dhacdada kadib qaatay diinta islaamka. wadanka ruushka ayaa waxaa ku badan dad aada u fara badan oo muslimiin ah laakiin dhaqankoodii bedelay qaatayna diinta masiixiga. halkaana waxay noogu dhammaaday wararkii bariga dhexe. cawil cagaare Royal TV bariga dhexe.